Soo dhawow daawade. Quruxda maxaad ka aaminsan tahay adi ahaan? Qurux maxay tahay? Ma jira hal micno oo laga midaysan yahay. Qurux ma ahan sida aad adigu u aragto. Maalin kasta marka aan muraayadda isku eegno, ma isjeclaanaa, ma isku daynaa inaan iska qarino baraha madow ee wejiga ama finanka. Waxyaabaha kala duwan ma ku dhaqaaqnaa wejiga, waxyaabo kala duwan ma ku dhaqanaa wejiga si aan u dhalaalno ka hor inta aynan guriga ka bixin. Sidaa darteed, ma qurux ayaad raadinaysaa? Maxay tahay ujeedada waxaas oo dhan loo sameynayo? Marka hore aan eegno, qurux maxay tahay? Dumarka iyo gabdhaha muxuu ugu badan yahay walwalka la xiriira muuqaalkooda. Arrintaasi waxaa ku xiriira in ragga isqurxiyaa hoos loo eego oo la yaso, balse dumarka isqurxintooda waa arrin iska caadi ah. Taasi waxay u muuqataa mid cadaadis ku ah haweenka iyo sida loo arkayo muuqaalkooda, wejiga iyo jir ahaanba. Balse isqurxintu waa mid dabiici ah ee kuma xirna make-up-ka ama waxyaabaha kale ee la ismariyo, mana ahan dharka la xirto mid ka timaada. Quruxdu ma waxaa loo arkaa isbarbardhigga wejiyada dadka ama midabkooda ama qaabka jirka. Dad badan ayaa aaminsan in dhammaan ay noqon karaan, haddana loo baahan yahay arrimo dabiici ah in lagu lamaaniyo. Waxaad maqashaa mararka qaar in quruxdu ay tahay mid qalbiga ka timaada, iyada oo haddana la og yahay in dadka ay kugu qiimeynayaan muuqaalkaaga. Waxaa kale oo jira dad quruxda u arka dhoola caddaynta iyo furfurnaanta qofka marka bulshada lagu dhex jiro. Waxaa jiro dalabaad la xiriira cilmu nafsiga oo ah in dib u qeexid lagu sameeyo waxa quruxda dhabta ahi ay tahay. In qofka quruxda badan muhiim miya in muuqaal qurux badan aad yeelato. Dad badan waxaa waqti ku qaadata inay hagaajiyaan sida uu muuqaalkoodu noqonayo, gaar ahaan gabadha. Waxaa dhici karta in saacad ama ka badan ay subax kasta uga baxdo qurxinta muuqaalka wejiga. Arrintaasi waxay xoojinaysaa kalsoonida qofka, balse kama fikirayaan inay jiri karaan qaabab kale oo quruxda loo muujin karo. Quruxdu waa fikrad. Dumarku inkastoo arrinkaasi uusan aaminsanayn, sidoo kale quruxdu waa qalbiga. Sidoo kale waxaa jira qof kasta oo dalku noolba si gaar ah ayuu isu qurxiyaa, sawirka ayuuna si kale u arkaa. Taasina waxay muujisay inaysan jirin qaab loogu heshiiyey oo quruxda loo arko. Waxaa dhammaadka noqda in quruxda ay tahay farxadda iyo qof kasta sida dadka uu u caawiyo quruxda inay tahay qalbiga wanaagsan, qofka furfuran ee isku kalsoon, qof aan dadka ku xukmin waxaa ku arkaya in uu ku furan yahay ama fikrad kale oo dheeraad ah uu la yimaado. Saaxiibayaal, waa inaga intaa mawduuceennii maanta ee nabadgelyo mahadsanidin.